قصة كلو عجب بدن وحا كيني الإمام البخاري في الأدب المفرد أيوكو كيني سنة كيدون وحسن إلى الحسن بن أبي الحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري تابعي وها وحليه نمبا دنتي مركاسا وحوكتك ويل أوليه هور علي ويل يرو علي إيه نين أدون وهان شروين ninkii adoonka uu ahaan jiray buu la dardaarmo wuxuu ku yiri wiilkaas yarka ah ka warhay oo kori markuu la dardaarmay ninkii adoonka ahaan jiray wiilka laga la dardaarmay wiilkii uu barbaariyay uu koriyay uu ku dadaalay uu weynaaday markuu qaan gaadhayna uu u guuriyay xaas buu yeeshay isagoo xaas leh ayuu marka wuxuu yiri jahizni atlubu al-ilma waxaan rabaa inaan cilmi raadsadee idir oo diyaari iyo wixii aan ku bixi lahaa iyo sahaydeedii iyo wixii diyaari waan bixi rabaa cilmi aan raadsanaya waayahay buu yiri waa qaban qaabiye wuxuu rabay u diyaariyay oo uu anba bixiyay ninkii soo socday nin caalim ah cilmi leh buu yimid markaasuu su'aal weydiiyay fasaalahu wuxuu la joogay markaasuu wuxuu ku yiri ninkii caalimka ah baa ku yiri إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك بكير مركز ربطو إن النقطة ضدك يكون نقطة إيه إمو بكيري أن وحكو برئ هو المهم أن كودي بيه مركزو أيمد نيكي شيخا مركو دمعي إنو بحو مركزو يري حضر مني الخروج فعلمني وقت كان بيحي لها بلقاري بيحي عذيب بلنقاضي بالإبر سدح كلمة بري مركز وحكو يري اتق الله واصبر ولا تستعجل صدح ما إلهي كبق صبروا هدقدقين صبروا أتكيسي يالو الرماهنا هكو دقدقين كاتسو وحولنكي ساقها حسن البصري وأمرك تعليقين وحوليه وفي هذا الخير كله وفي هذا الخير كله خير أردن بهلكا كتير صدح ذا قضب أي خير أردن كتير ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث ننكي صدح دي الرمود مهل مامين السيدو دي بغو قبطي وصوتي ريركي وعلمي يكرر سدي يحاسكي سي ريركي وكسو نقضي فجاء أهله فنزل عن راحلته هشي اوتي قاديدكي بحق أسو كالك كسو دقي مركو قريكي سي صوق علي وحيل له ردوها بينما أيوه فإذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة guriga haduu soo galayba halkaas waxa jiifanin xaaskiisina halka loo kala jiiftaa iskuma ay dhagana islamana jiifaan laakiin way kala jiifaan midna xaaskuna halka ay jiiftaan ninkuna halkaas uu jiifaan way kala durugsan yihiin markuu arkay wuxuu yiri wallahi ma uriidu an tadiru bihada tan wax la fiirsan karo la suugi karo ma waa ila tilaabo ka qaado ninka naagtaydii iyo gurigayga waxaan dhex jiifaa فرجع إلى راحلته هشي ونقضي سيف بأوجرت سيفتي وسوقاتي مرك فلما أن أراد أن يأخذ السيف مركو سيفتي لصبح يسيري أيا وحو حصوصتي اتق الله واصبر ولا تستعجل يا هل لو دي كلمة صدح دي كلمة لسوسي إلهي كبق صبر هندك دقن انتي وحصوصتي سيفتي وكيمن ويسقسوتي وصول نقضي هذا gurigii buu soo galay hadana markuu ninkii islaantii soo dul istaagay hadari wallahi wax la fiirsan karo ma waa noqday safety rasuul hadana safety buu u tagay markuu ratigii iyo safety u tagay oo safety qaada uu isiri ayuu hadana wuxuu xusuustay ittaqillaha wasbir wala tasta'jil ajab waa ka soo noqday hadana ninkii buu dul yimid حالتي بهدنو أتكيسوا يقول والله تلا هدنا الله في السكر ورادو صدق قرب ومرنا سهفتي وهذا مرنا ونكي سود الاستاج مركي قدام يصير سود الاستاج أيو نكي هردة كعب حدو هردة كعيبة ونكي كوريي موليه ساها أبيه كلا دردار ولا يسكبوا ذي شفق على السصاري قرط على الصدي ولا السلامي markaasuu wuxuu yiri ma asabta baadi wala iswarsan Soomaa wala wada fadhiisaday wargadaashay maxaad asiibtay oo adigii naga tagay maxaad keentay maxaad wadaa cilmi yaa maxaad la soo kulantay
markaas wuxuu yiri asabtu wallahi ba'daka khayran katiran bur ilaahi baan ku dhaartay gadaasha khayr badan baa soo helay oo maxaa soo heshay asabtu wallahi ba'daka anni mashiitu laylata bayna as-sayfi wa bayna ra'sika 3 miraar bur waxa soo helay waxa weey caawa wuxuu yiri 3 goor baan madaxaaga iyo seefta u dhaxeeyay bur oo marna seefta aadahay marna aan ku soo dul istaagayay bur طيب فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك إن أن كدلو عاوة أو سيفتا مدحك هاقوي وحا إقربو إقهر إستاغي وحو أها وحي أن صوبرتي ومحاد صوبرتي ونكا كاعلي وكابد بالي اتق الله واصبر ولا تستعجل حدوثا كلمة إلهي كو أنفع إلهي المحاد إله ninkii koriyay buu seefta kaga goyn lahaa madaxa kaga jari lahaa haduu madaxa kaga jarana maxaa dhici lahaa nin dhiig islaam galay buu noqon lahaa oo ahlu naara talabaadu abaalaaw noqon lahaa ninkii yaani gacanta ku lahaa buu bilaash ku dilay Soomaa marka waxa soo dhan muxuu kaga badbaaday wala tastaajil hadagdagin ya khubsiima maxay dhan Soomaalidu ya hubsiima hal baa la siistaa khaasatan meelaha xarijka ah oo aan sahlanayn ha ku degdegin aad u fiirso oo ka warwareeg oo rog oo muxuu ahaayay ha degdegin hadaad degdegto oo shaytaan ka shaqaysto markaasi waxa weeye waxa ku dambeynaysa markaa nadaamo iyo qoomamo iyo wax aadan bari daawadiisa heli kareen degdegaasi marka wax way waa kale inaga waaniye waa inagu abuuran yahay waa dabeeca inagu abuuran hadana waxa la doonayaa in la dagaalamo oo sida wanaagsan ruuxu inuu kaadsiyooni iyo hubsasho inuu leeyahay waay oo uusan degdegin waxa kamida xadiista macnaha ku soo aroortay xadiidka Abdullah ibn Sarjis al-Muzani nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam as-samtu al-hasan wat-tu'adatu wal-iqtisadu juz'un min 40 juz'an min an-nubuwah yani wax weeyaan dhaqanka wanaagsan iyo kaadsiyoonida inuu ruuxu kaadsado uusan degdegin iyo inuu dhexdhexaad ku socdo uusan labada daraf midna aadin arimahaasi waxay kamid yihiin waa gabal kamida 24 gabal oo nabinimadu u qaybsanto nabinimada 24 gabal ah 24 gabal kamida waxa weeye kaadsiyoonida iyo xasiloonida iyo degdeg la'aantu waa qayb nabinimada kamida soo meesha la geeymaar marka degdegin waa xadiidka waxa soo saaray Tirmidhi waana xadiid xasan waa marka nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu amaanayo meel badan buu ku amaanay zaaric in la yiraahdo wuxuu leeyahay saxaabi aha magaalada Madiina nimid buu yiraahdo anagoo Abdul Qays reerkii la dhigi jiray wafdigoodii anagoo wafdiyo soconna ayaa nabiga u nimid markaan magaalada nimid anagoo wafdi ah ayaa waxaan bilownay buu yiri intaan gaadiidkii aan wadanay aanan furin oo nararkii ka dajinin ayaanu yaacnay buu nabigaan ku yaacnay in walba xuleeyaa nabiga laga dheerayn nabigaan ku yaacnay buu markaas waxaan bilownay buu yiri inaan gacanta ka dhulkano marka aan u tageynana dharkii aan safarta ku nimid ma ana iska bedelin buu nin walba dharkiisa soo qaba isagoo geeliba dharkii ka dajinin buu sii daayay buu markaas nabi ku yaacnay hay ninkii odayga uu ahaa oo mundirul ashaj leeyahay mundirul ashaj baa la dhigi jiray ayaa isagu muusan degdegine wuxuu sameeyay halihii iyo gaadiidkii laga soo tagay ayuu intuu fadhiisiyay ayuu rarkii ka dajiyay kii ay ka soo yaaceen buu isagu ku mashquulay wixii buu ka dajiyay kadibna meeshii dharkiisu ugu jiray intuu yimid buu dharkii iska bedelay dharka lu soo qaatay oo munaasib ku ah nabiga qaabilidiisa kadibna rasuulku uu yimid sallallahu alayhi wasallam inta nabigu waa arkaa qoladan soo yaacdayna waa arkaa ninkaas iska mashquulsan ee geeli furfurahaye dharka iska soo bedel waa arkaa nabiga markuu yimid uu salaamay sallallahu alayhi wasallam markuu salaamay ayaa rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam inna fiika khaslatayn yuhibbuhumullah ashajaw laba sifo oo ilaahay jecel yahay baa dhexdaada
markaasaa waxaa yidhi maa humaa maxay yihiin rasuulka ilaahayo nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alxilmu wananaa yaa waa dulqaadka iyo kaadsiyoonida yaa tartiibsiga iyo degdeg la'aanta labadaas sifaa ilaahay ku siiyey buuri markaasaa waxaa dhibuhi yaa rasuul allah ana atakhallaqu bihimaa am illaahu jabalanii calayhimaa ma aniga unbaa dhaqan ka dhigtay oo iska raadiyey mise ilaahay baa igu abuuro dabeeca iiga dhigay markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam bal illaahu jabalaka calayhimaa ilaahay baa kugu abuuroo ku siiyey ee waxaad adigu iska doondoontay ma ah markaasaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jabalanii calaa khallatayni yuxibuhumaa ilaahayga laba dabeeco uu jecel yahay igu abuuray ilaahaasaa mahad iska leh soomaalit marka raggii soo yaacay ee nebiga lagaaga hormari u soo yaacay ninkaa kaadsaday buu nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu